guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Dadka qaarkood waxay yiraahdaan lacagtu adduunka way ka dhigtaa mid soo wareegta. Waa run in lacagtu ay saameyn ku leedahay qayb kasta oo noloshaada ka mid ah. Haddii aad barato sida wanaagsan ee lacagta loo maareeyo, waxay yareyn kartaa carada oo kaa caawin kartaa inaad ku noolaato nolol caafimaadaysan. Waa kan 6 tillaabo oo kugu haga dhaqaale caafimaadaysan. Tallaabada koowaad ee lagu gaarayo dhaqaale caafimaadaysan waa in miisaaniyad la samaysto. Miisaaniyaddu waxay kuu muujinaysaa inta lacag ee aad kharash garayn karto. Ka bilow adiga oo qorta dakhliga bishii ku soo gala, dhammaan wixii lacag ah ee ku soo gala hal bil. Tan waxaa ka mid noqon karta lacagta shaqada kaa soo gasha ama qoyskaaga ka timaada. Kadibna ku wada qor dhammaan wixii qarashaad ah, lacagta kaa baxda inta lagu jiro isla bisha. Waxay u badan tahay in qoraalkan ay aad u dheeraan doonto. Ku qor wixii bil ah ee sida taleefanka, korontada, ijaarka, shidaalka, iyo adeega guriga. Hadda qarashaadkaaga ka jar dakhligaaga. Haddii tirada kuu soo baxda ay eber ka yar tahay, dhibaato ayaa ku haysata. Mar kasta waa inaad higsataa dakhliga ka badan qarashka kaa baxa. Haddii qarashka kaa badan uu ku badan yahay dakhliga ku soo gala, waxaad u baahan tahay inaad yarayso waxa aad qarash garayso. Tallaabada labaad ee lagu gaarayo dhaqaale caafimaadaysan waa inaad yaraysaa deynta. Waxaad qortaa dhammaan lacagta adiga lagugu leeyahay, ka bilow deynta ugu yar ee lagugu leeyahay ilaa deynta ugu badan ee lagugu leeyahay. Sidaas isugu xiji. Deynta ugu yar ee lagugu leeyahay horta ka bilow, kadibna ku xiji deynta labaad, oo sidaas kor ugu soco inta aad sii bixinaysid deyn kasta ee lagugu leeyahay. Waxaad bilaabaysaa in dhiirigelin aad dareento oo aad sii wado. Dhaqaale caafimaad oo wanaagsan waxay micnaheedu tahay deyn si xikmad leh u isticmaalid. Marmarka qaarkood waa inaad isticmaashid kaarka deynta, sida marka aad iibsanayso tikidhka diyaaradda. Oo marmarka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad hesho deyn aad ku iibsato wax weyn sida baabuur. Laakiin ma aha wax xikmad leh in deyn la isticmaalo si loo soo iibsado walxo yaryar sida cuntada iyo dharka. Alaabta deynta lagu soo iibsado lacag badan ayay kugu kacaysaa, maxaa yeelay dulsaar ayaa fuulaya. Tusaale ahaan, haddii 6,000 aad deyn ku qaadatay oo dollar baabuur ku soo iibsatid, waxaa dhici karta inay kugu kacdo aad bixiso ku dhawaad 9,000 oo dollar marka la gaaro dhammaadka inaad bixiso lacagta aad ku soo iibsatay. Mar kastaaba waxaa wanaagsan in lacagtaada aad marka koowaad meel dhigato oo wixii aad soo iibsanaysid lacag naqdi ah ku soo iibsato haddii aad awooddo. Haddii ay kugu adag tahay isticmaalka kaarka deynta, guriga ku dhaaf oo geli meel fog oo kugu adag in aad gaarto. Sidoo kale, iska hubi inaad raaciso deynta ama lacagta aad ku bixiso kaarka deynta ee bil kasta, sida qarash kaa baxa inay tahay miisaaniyadaadana ku dar. Tallaabada afraad, dhaqaale caafimaadsan oo wanaagsan waa in lacag meel loo dhigtaa si aad uga baxsato xilliga xaaladaha degdega ah
sanduuqa miisaaniyadda ee xaaladda degdega waxay xaqiijisaa inaad haysato lacag aad isaga bixiso wixii qarashaad ah haddii shaqo la-aan ay kugu dhacdo. Sidoo kale waxay kaa caawin kartaa inaad isaga bixiso wixii qarash ah ee aan la filayn sida dayactir baabuur ama marka aad booqato isbitaalka qaybta xaaladda degdega. Bartilmaameed wanaagsan waxaa ah inaad meel dhigato 6 bilood wax u dhigma ee qarashaadka aad isaga bixiso. Waxaad awoodi kartaa inaad ka bilowdo in 50 ama $100 aad meel dhigato markastoo aad soo qaadato lacagta mushaarka oo koontada kaydka aad dhigato. Inta aad sii bixinayso lacagta deynta oo bilow inta lacagta kugu shubato miisaaniyadda sanduuqa degdega. oo sidoo kale waxaad u baahan tahay in aad mustaqbalka ka fikirto. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad gasho caymiska nafta ama bilow inaad samaysato koontada kaydka ee lacag aad meel u dhigto ubadkaaga waxbarashadiisa kulliyadda looga bixiyo. Sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad qorsheysato howlgabnimadaada. Soo ogow haddii shirkadda aad u shaqeyso ay bixiso manfaca howlgabka ee ah 401k ama bangi wadahaaga ama bangaariyahaaga oo aad kala hadasho koontada howlgabka shakhsiga ama IRA. Ugu dambeyntii, lacagtaada wax yar isaga maaweelo. In yar lacagtaada ku soo gashay ka mid ah meel u dhig si aad isaga maaweelato. Si loo joogo marmar naftaada ku qadari waxyaabo adiga ku farxad geliya oona kugu sii haya dhaqaale caafimaadaysan oo wanaagsan. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas faya qaba iyo adiga oo faya qaba.